waxbartaan 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 barwaaqo gaarane waxbartaan 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 barwaaqo gaarane بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن داوضة يالكوسو دوادا برنامجka sahanka waxbarashada ee TV-ga Shabeelle toddobaadkiiba aad marka daawataan barnaamijka toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanayaa mid ka mid ah collegeska lagu barto maadada caafimaadka gaar ahaan kuliyadaha kala duwan ee caafimaadka ilaa ardayda ay gaaraan heer dibloomoyin iyo wax ka sareeya collegekan waxaa lagu magacaabaa Maama Amina College hadda galaaska waa uu maran yahay waa galaaskan mid ka mid ah galaasada caafimaadka ardaydu ay ku bartaan hadda si toos ay galaaska u soo xaadiri doonaan qaabka daraasadu ay u baxaysa ayaan idinku duwi doonaa hadduu ay baraali ka noqdo daawasho wacan أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ما أنتوا حكى لي دورنا فاست ايد محل فاست ايد يا فاست ايد لو سمية فاست ايد يدو بدنا يلا سمية محاوى انسى كذا دورنا فاست ايد مركل هلا سيدا أجنة هاي فاست ايد كحاوى وجرجار دق دق معناه هذا جرجار دق محل جودا قف إن لو جرجار يا لو جرجارة يا سمودن فاست ايد رتو حلها وحلقة سمية مال وصل إسبيتال عنهم معناه صالحان قف أشيل قلة إسبيتال دو markii waxaas la sameeyay waxa lagu magacaabaa fast aid Allah gargaar degdeg Allah waxa ka sameyn doona fast aid kala duwan tusaale ahaan qof meel shil ku dhacay qofka waxa soo gaaray wound waxa ka wadnaa dhaawac soo gaaray nooc noqon kara horta markaad u sameynayso qof shil gal maxaa lagaaga baahan yahay waxa lagaaga baahan yahay area aad ku sameynayso shilka waa inaad laba qof aataan tusaale ahaan baawura meesha ku dhacay laba baawura isku dhacday dad badan dhaawacan dad badan fracture oo jajabay dad badan stab oo dhaawac oo xoo qabo banaanka so waxa rabnaa inaan ka sameeyno marka area marka sameeyniska waxa laga rabaa horta qofka inaad iska fiiriso meesha qofka uu jiro meel safe miya safe maxaa ka wadnaa qofka macnaa agagaarkiisii area-diisa marka hore iska control meel safe ma taa haddii safe tahay fast aid oo sameyn kartaa marka labaad haddii baawurka ay yihiin tusaale ahaan laba baawur oo kala duwan oo isku dhacay laba qof labada dhinac u dirsanay si baawurtii wax lagaaga celiyo wasla fahanimo intaas so woundiga laba nooc noqon kara dhaawac laba nooc noqon kara labada nooc mid waxa waaye inuu close noqdo iyo inuu open noqdo labadaas noqon kara macnaheedu close maxaa laga wadaa open maxaa laga wadaa close maxaa laga wadaa open maxaa laga wadaa close waxaa laga wadaa qofkan uu dhaawacmay laakiin dhaawaciisa wuu xiran yahay macnaha guduhu ku socda open maxaa laga wadaa qofkan uu dhaawacmay laakiin dhiig intuu ku socda banaanka ku socda labadaas qaaba loo kala dhigaa wound marka laga hadlaa so labadaba marka sameynayso qofka fast aid marka la rabo inuu fadhiyo qaab u fariisto habag iskama dhahayo qaab u fariisana lugtaan oo dhigana tan kalena uu laaba macnaha okay saas u fariisana si agaaridiisa dhan uu wax ugu soo qabsan karo hadduu qofka close uu yahay uu close gareysan yahay waxaa loo baahan yahay only inaad isbitaal geyso tusaale ahaan hemorrhoidka dhiig bax wuxuu noqon karaa hemorrhage wuxuu noqon karaa gudaha hemorrhage guduhu noqon kara hemorrhage banaanka noqon kara soo hadduu close yahay wuxuu u baahan yahay isbitaal geyso laakiin open hadduu yahay maxaa sameynaa fast aid ka sameynayso waxaa waa bandage ama faashada soo qaadanay waxaa sameynay waa duubay qofka meesha uu dhaawac ka yahay wasla fahanimo meeshaasna meesha ka sareysa ka xire intee ka xire tusaale ahaan inta wound ka socda meeshaana dilaacday dhiiga socda maxaa sameynaa bandage ku xire intana waa ka xira sababta inta ku xira maxaa waaye blood flow-ga dhiiga fara badan soo socda ina xadidaan rabaa maxaa loo baahan yahay qofka marka xiraay waxaa loo baahan yahay every 30 minutes ina hal mar furo every 30 minutes ina hal mar furo every 30 minutes hal mar maxaa fura sababta every 30 minutes hal mar u furaa waxay tahay waxaa diida in meesha ay dhimato sababtoo blood flow-ga meesha xubinta sida ay ku shaqeyso blood flow dhiiga waa soo hadda inta ka xiro dhab siiyo 3 daqiiqo hal saac ay iska xirnaato meeshaan dhiig la'aan ay u dhimanay hemorrhage noqone hemorrhage haddii noqotan waa dhimanay saas darteed every 30 minutes isbitaalka inta sii wado waa xira waa fura wax yara deena ka dhiman waa xira si aysan organ-kan u dhiman wasla fahanimo intaas so woundiga saasa loo sameeyaa bandage qabanay qofka ku duuduubay and then package marka u sameeyso isbitaalka geeyni fast aid kana gal rabo intaas ina sameeyno tusaale ahaan qofka fracture uu sameeyay fracture maxaa loo jeednaa wuu jabay tusaale ahaan wuu jabo qofkan hadduu jabo meesha uu ka jabaa fiirina lafta oo femurka miya lafta oo alnada miya radiuska miya meesha uu ka jabay
ay ku xiran tahay jabka uu jabay nuuciisana way ku xiran tahay meesha uu ka jabay waa arkay tusaale ahaan waa xadid wuxuu ka jabay alna iraadiisa isku mar jabaybo ama fiyo markuu ka jabaybo ama fi buladu ka jabaybo tusaale ahaan hal meel oo ka jabay waa xadidimaho marka xadid waxyaabaha liiga baahan maxaa ka mid ah koo waxaa rabaa nooca uu yahay fracture-ka maxaa fracture-ka laba loo kala qaybiyaa close fracture iyo open fracture waxaa fiirinaa nooca fracture-ka markaas haysto uu yahay waa isla fahanimo tusaale ahaan kan waxaa waa ama close ama open waa labadan fracture midkooda haystaa meesha area qofkaas safety inay tahay waa soo ogaaday wax walba inay safe yihiin waa soo ogaaday dhag waaye waxaa fiirinaa qofka ma close ma open so close maxaa laga wadaa wuu jabay laakiin lafta banaanka ma soo baxsano laakiin inuu jaban yahay waa u jeedaa open maxaa laga wadaa wuu jaban yahay lafta banaanka ku soo baxday dhuuxa banaanka ku daadanaa inta isla fahanimo labada wax kala ma sameynaysid meel rural area maxaa laga wadaa meel baadiye hadday tahay rural area hadday tahay gooni oo la tacaamulaa rural area maxaa waay waxaa soo qabanaa qofkan close waaye tusaale ahaan intuu ka jabay laba cad oo alwaax isla siman ama baakado oo adagoo isla siman labada dhinac ka saaraa and then bandage ku duuduuba si isbitaalka u gaarsiiyo kaas maxaa waaye waa close not open maxaa waaye open waxa uu qaban karo waxay tahay koo horta inaa ka joojiyo balaarka socdo inaa joojiyo maxaa ku joojinaa waa duuba zaida u duuba markaa duuba kadib waxaa sameynaa sida hadda u sameynaa meesha kale ayadan u sameynaa kaas maxaa lagu magacaaba fracture macnaha waa kormaraya fracture-ka noocaasa allah okay intaasi waxay ahaayeen ardayda iyo sidoo kale qaabka xisadu ay u bixisay ee kuliyadda caafimaadka ee Mama Amina College of Health Science markan Dr. Liban ayaa ardayda ku dhiirigelinaya barashada caafimaadka iyo sidoo kale faa'iidadu ay u leedahay shakhsiga marka uu caafimaadku barto uuna kaga duwan yahay bulshada inteeda kale si guud ayuu ardayda kula hadlay oo si iyagoo wada fadhiya ayuu kula dardaarmay in caafimaadka barashadiisu ay xoog saaraan doctorka oo ardayda dhiirigelinaya nala daawada arday jooga ee iskool inuu yimaado ama macad uu yimaado ama college uu yimaado materialka dhameystiran inuu helana waqti uma heli jirin hadduu materialka helana waqti uma heli jirin hadduu waqti u helana amniga umaysan saamixi karin hadda waad dareemi kartaan kaaraan inuu arday ka yimaado halkan college uu ku diyaariyo fail science diploma waad dareemi kartaan amniga iyo jaaniska aad haysataan midda koowaad in badanna waxaa lagu tiriyaa haweenku inay ugu badan yihiin inta wax barata caafimaadka markii la dhaho waxaad ka qiyaas qaadan kartaan halkan hadda la fadhiyo waa nambarka ugu badan iyaga waxayna muhiim uga tahay iyada waxay samaysaa waxay soo barbaarisaa environment oo nadiif ah deegaan caafimaad qaba ubad caafimaad qaba aaba caafimaad qaba waxa mas'uul ka ah hooyada marka waxaan ku dhiirigelinayaa doorka caafimaadka mar walba wuxuu ka ballaaran yahay kuliyadaha kale team qaarkood waxay diyaariyaan IT haddaad barata IT waa muhiim inaad baratid how to injection canugaaga caawa hadduu shoombiyoodku soo boodo aadan duri karin cirbid yaroo dhakhtar kuu soo qoray ee aad raadinaysid dhakhtar waqtiguna uu kuu saamixi waayo maxaad dareemi lahayd waqti xadirkan aad taagan tahay waxaad dareemay inuu muhiim ku yahay markaa inaad barato daawo uusan canugaaga u baahnayn ama daawo aysan u baahnayn hooyada aabbaha walaalka walaasha loo soo qoray haddaadan garanaynin qaabka loo akhriyo micnaha ay tahay waxa ay sababi karto waxaad dareemaya waqtiga ay kugu dhacda adiga laakiin jaanis hadda waxaad u haysataa aad ku diyaarin karto 4 kuliyadood aad baran kartaa maskaxda bini aadamka wax ka baaxad weyn ma jiro waxaan markii idinkugu dhiirigelinayaa caafimaadka kuma xirna joosa Soomaalidu inta badan waxay ku doortaan inay lacag ka sameeyaan waa qodobka koowaad haddii caafimaadka la leeyahay hadda meel walba inta badan fiiri meel walba waxa laga furay isbitaal hadba laakiin fursadaha bannaan mar walba way sii kordhayaan markaan u soo gudbo marka halkaad fadhisaan ee college-ka maamulka sare wuxuu ku diyaariyay material dhameystiran oo ay ka mid yihiin qaabkaad ku samayn lahayd toliinka qaabkaad ku samayn lahayd maxaa la lahayay duriinka iyo hooyada uurka leh siday waqtiga ugu soo qaadan lahayd waxaan u maleynayaa dhammaanteen inta fadhisa wax soo dhalay iyo waxaan dhalin iyo wax dhali doono inay halkan ku jiraan waa muhiim marka marxalad walba aad maraysa inaad og tahay wax walba kugu dhacayna inaad og tahay marka caafimaadku waa doorka kaliya ee ardayga
markuu barto uu anfici karo mujtamac dhan badbaadadooda tusaale haddaan u soo qaadanno markuu dilaacay covid-19 waxaa bulshadeenna laga kari waayey in ay maas xirtaan in ay kala fogaadaan waxaa sabab u ahaa inuusan qofkan inta badan uusan ku baraarugsanayn in waxaan ay yihiin ama waxaan qaabka ay ku faafayaan inuu yahay qofkan neef ka soo baxday ama dhibcad roobis afkiis ka soo baxay qofkan kale inuu gaaro in qofkan la karantiilo meel lagu celiyo waxay tusaale ahaan ugu soo qaateen yaan jaraya macanugeegaan jaraya ma hooyada aan jaraya haddii marka kiiskan gurigoo dhan uu ku faafo environmentigoo dhan uu ku faafo mujtamac dhan inuu baaba'ay noqoneen marka waxaa muhiim ah doorka iyo go'aanka qaadateen Soomaalida inta badan hal mid ku hadashaa caajisku waa wax annaga aan u wada dhalanay midda koowaad in qofku wax uu doorto qabiil inuu kaga tago waa waxaan u wada dhalanay Soomaali aan u nahay laakiin waxa la isku dhaafay karti iyo adeeg in loogu gudbo dadka qaarkood waxaan annaga markaan practicada sameeynayna hadda college waxa lagu diyaariyay waa bomba la diyaarsan oo requirement-igi loogu tirigalay practical lagu sameeyo la duraya laakiin annaga gacmaheena 5 jeer is duri jirnay ilaa xididka aan ka keenno in iyagoo gacmaheega dhiigeena inta baxno aan xaafadeena u laawanaynay faa'iidadeeda laakiin maanta aan haysanaa waa shalay toole markii xiisada la gaaray 8 saac waan caasijisi jiray oo waxaan nici jiray inaan xiisada ka soo qayb qaato ama galaaska aan xaadiro laakiin ma dareemaynin baahidaas ima haynin laakiin hadda aabaan ahay waxaan dhalay xasan leeyahay caawa hadday fool yar qabato ama nabar yar oo xanuun uu qabto waxaan kasi karaa daawaday u baahan tahay haddaan kasi lahayn IT aan ahay waxaan raadin lahaa asaaga iyo hurdaay wuxuu dhihi lahaa Britoli soo wacan waan jiifa ama silent iga saarnaa xaaladaas way dareemi kara marka qofka waqti xaadirkaas ay ku dhacdo laakiin wax walba waxa muhiim ah intaysan kugu dhicin inaad ka hortagto muhiim ah inaad caafimaad kaliya ku ekaato baro diyaarso dhiga buugaagtaada cilmigan adaa iskale IT-gaaga aad waxaa rabtid aad business aad economic aad siyaasadda meesha rabtid aad laakiin waxaad u baahan tahay warsideen nafsadeyda iyo nafsadaha igu xiriira aan u badbaadin karaa waxaad ku badbaadin kartaa wax walba oo muhiim u ah nafsadaada inaad barto caafimaadkana waxyaabaha aasaasiyaadka u yahay haddaanan garanaynin biyaha qaabka u wasaqoobayaan oo aanan garanaynin environment-iga aan ku noolnahay inaysan nadiif ahayn haddii uusan nadiif ahayn muxuu igala maqan yahay wasaqdu maxay ii keeni kartaa haddaysan hooyada garan karin ka waran cunuga keene intay fariisine way ku saxareene hanjeere dubay yeesiine marka kii kale fiyo way siine canugi maxaa ku dhaca washuma ciyaal dhan wada shumaayo marka waxa imaanaa marka dambe deegaan dhan wada shumaayo waa dareemi kartaan waagii hore sanad walba kiisaska la qabanayo shumbiyoodka isbitaalada geedaha hoostooda la seexan jiray laakiin hadda digriiskoodu wuu yaraaday maxaa yareeyay cilmiga aad loo raadinayo waxaan markaa idinku boorinayaa waqtigaad maanta haysataan Britoli ma heli doontid hal saac oo ka tagtay dib kuguma soo laabanayso marnaba ha ku fikirin taas laakiin mar walba dhaqaale waa sameyn kartaa waxa muhiim ah markaa idinku la dardaarmayaa go'aanka aad qaadanayso ha noqdo go'aan nafsadaada ka soo go'ay yuusan noqonin go'aan damac xiiso kugu kalifayo in bari aad meel qabya ugu tagto mar walba waxaad fiirisaa wadadii shalay laga soo tagay meesha ay taagan tahay maanta waqtigaad haysato dhaqaalaha lagugu bixinaayo adiga Britoli hooya noqonay meel ma aadi kartid qofaaba shaqo inuu ku aado guriga kugu imaanayo cilmi ma raadin kartid canuga dhale isaga barbaarin ka rabo muxuu ku taraa marka inaa cilmi raadiso waxa muhiim ah marka aan idinku la dardaarmayaa waqtigaad haysataan wuxuu muhiim u yahay idinka badbaadadiina iyo badbaadada bulshada emotionkiina mar walba waxaad ku kaliftaan nafsadaada go'aanka ay qaadato ilaa iyo meesha ugu dambeeyay inay ka gaarto nafsadu waxay kugu kalifay 3 waaye inaad caajisto iyada kugu pressure gareynayso inay caajis ku saarto pressure ku saarto ilaa iyo adaptada kala qabsato waxaan ma fahanto soma tusaale waxaad u soo qaadataa xilligaad imtixaanka diyaarinayso fiiri marka daraasadda qaadanaysa kuma baraarugsanayn in daraasaddan lagu celceliyo ay hadhow faa'iido leedahay laakiin time-ka imtixaanka la soo dhajiyo markaasaad ku baraarugaysaa marka waxaan idin leeyahay caafimaadka inaad barataan idinku muhiim idin yahay bulshadu muhiim u yahay marka wax walba waxa ka muhiimsan adin nafsadaada daafan soma marka wax walba ma ahan hadafkaad u sameynayso inaad dhaqaale ka samaysato in bari aad wax ku
dad qaarkood waxay leeyihiin caafimaadka meel walba waa laga furay meel walba farmashiyaa ka furan meel walba isbitaalaa ka furan hooyaday aabahayna isbitaal ma lahane beri aani shaqasin ku helaa ninka isbitaalka furtay wuxuu siisanayaa maxaa la hayay ubadkiisa iyo dadka ka hooseeya iyo dadka xigaalkiisa anise beri shaqo ku helaa ku leeyahay marka war shaqo ma ahan adiga caafimaadkaaga maxaa kaaga muhiimsan wax adiga caafimaadkaaga iyo caafimaadka qoyskaaga wax kaaga muhiimsan maanta ma jiraa hal qof oo ka xanuunsaday maxaa dareemi kartaa maanta intee farmashiya tagay intee farmashiye intee dhakhtar tagay intee qof saaxiibka aad weydiinay dhakhtarka ugu wanaagsan ee maanta magaalada jooga waaya u weydiinay gey dhakhtarka furtay asiga ku aqriyo wuxuu rabay isaga ku sheego qalliin ha kugu sameeyo bari marka baratid adoo cilmigaaga lahayn marka kutub marka lagu dhaha marka caafimaadka ka waran hadaa baratid see waayo markaas isku day lahayd ina laakiin hada wax ka ogaan lahayd kiisas badan ina baarto hada doctor waxaan ma ahan waxaan hadees inta naga jirin dhinacaan ma ka raadino waa dareemi kartaa marka waxa muhiim ah inaad caafimaadka barataan maanta go'aana ku soo qaadateen waa imaadeen wax badan oo pressure aad dareemi doontaa saaxiibka ama saaxiibada oo caajislo waa xaafada kaaga horeeyo wuxuu ku leeyahay caafimaad hiblaawe baratay maxay haysaa hiblo uu bartay muxuu hayaa gurigiina 5 qof ka baratay muxuu 5 qof ma ka qosayadi nafsadaada bis adiga nafsadaada way biri waxa ku iimaanaya waqti uusan saaxiibka meel uusan mas'uul ka ahayn adi mas'uul ka tahay ubadkaaga adaa mas'uul ka saaxiibada mas'uul ka ma aha biri way ka haray iyada way ka reebtay sax laakiin biri way ka haray laakiin go'aanka yaa laga rabaa mas'uuliyadda ay saaran tahay adi waqti muu haysaa hadda ha dhaqaale muu haysaa ha wabillahi tawfiiq baramarka hadaysan jirin waa sababa uga harto waxa dhahday meesha mas'uulaadii kari transportation wixii ma heli kari zoom lagu keenay baro maalmaha practicada imaw qaado practicada gurigaaga u laabo meel ugu baaqsatid ma laha gurigaaga adoo joogo wax baro qadadaada cunto 7 saac macalinka diyaar uu ku yahay soo gal zoomkaaga cashirkaaga qaado seexo caajis inta iska weyn ma jiro sariirtaada lagu keenay wax barashada hadda intaas ka hari weysid bari meesha ku dhacay mugo waa wax aad mas'uul ka tahay san cidna mas'uul ka ahayn marka waxaan idin leeyahay doorka iyo go'aanka aad qaadateen ilaa heerka ugu dambeeya aad ka tagtaan ha joojinaada oo maasantiin وهاجاج ولي وحن كوجد جرنا برنامج كني إن سهن كوح برشة الضوء ضيال وتضبط كي بمر إذا كجي ماذا تي في كشبه لا أتكدا وطن تضبط كان سيدا أنا رجع برنامج كده كل شيء جنوح إذا كجي إيمانه يا ما أمينة إن health ما أمينة College of Health Science إن وحصاد ضوءتين أرضية يصيدوا كله دكتور ليبان أو وعي جلنت أسمينه أرضية يصيدوا كله فائدة عافمات كلها مركن qolka hadda aan hortaaganahay waa mid ka mid ah qolalka loogu talagalay ardayda inay ka helaan requirements ka caafimaadka oo dhameystiran ama agabka caafimaadka oo dhameystiran hadii macalinka uu soo siiyo fikir halkan wax ay ku qaataan practicalka waxaad isweydiinaysaan qalabka ku jira maxaa qayb ka ah nala daawada sida aad arkaysaan waa qayb ka mid ah walxaha practicalka ardayda ay ku sameeyaan waxaad moodaa in qof uu yahay laakiin ma ahan waa agabka loogu talagalay in ay practicalka ardayda ku sameeyaan agab kala duwan ayaa halkan yaala oo ardayda practicalka ay ku sameynayaan daawadayaal waxa qolkan hadda ku sugan oo wakiil ka ah madaxa caafimaadka college-ka Dr. Mulki oo ayaa inooga warbixinaysa qaabka practicalka ardayda ay u siiyaan iyo sidoo kale agabkan faa'iidada uu leeyahay ardayda sida u jeedinba qofkan meesha jiifo waa agabkii ugu talagalnaa ardayda inaan practicada ku siino shakhsigan waxaan geedkan wax badan uu noo qabanayaa ama bombalahan wuxuu inoo qaban doonaa in ardadii ay ku baraatikeeyaan markaaseeto dureenkii iyo qaabkii markaaseeto oo xididka u heli lahaayeen sidoo kale ardadu waxay ku baraatikeyn karaan in oo yacni haddii qofka naqaskii uu ku dhago oo qofkii yacni uu nuuxsan waayo ama uu hadli waayo in bombinkii loo sameeyo iyadoo oo markaaseeto oo bombalihii markaaseeto oo xabadka laga riixriixaayo sidoo kale ardadu waxyaalaha kale ugu faa'iideysan karaan waxa ka mid ah in tuliinki markaas ay ku sameyn karaan oo tuliinki meeshan jeexan in ardayga markaas tuliin uu ku sameeyo waxyaalaha kale oo loogu faa'iideysanayo waxa ka mid ah in muruqii naftirkiisa uu leeyahay meel walba oo muruqa ah oo ardayga loo baahan yahay inuu baraatikeeyo qaabka muruqa markaas loo duraayo sidoo kale wuxuu noo anfacayaa bombalahan qaabka loo gelin lahaa qofka NGTube-ka ama markii nafaqeynta la sameynayo ilmaha tubada sanka laga geliyo wuxuu kaloo noo anfacayaa sidoo kale in hawada qofka markay ku dhigto qaabka loogu soo bixin lahaa iyadan in practical loo sameeyo sidoo kale
inta waxaa noo yaalo agabyadii markaasito loogu talagalay anatomiyadii ama loo ogaan lahay waxyaalaha ama organiska ku jira caloosha ay ka mid tahay mandhicirihii wadnihii calooshii iyo xididadii iyo meel walba waxa uu maraayo ardayga soo u arko wixii markaas jirka oo ka mid waxaa kaloo halkan inoo yaalo hooyadii uurka lahayd iyo cunuga qaabka kan wuxuu muhiim u yahay waa hooyadii uurka lahayd iyo cunuga qaabka uu caloosha uu ugu jiro sidoo kale waxaa ku jiro meeshaan mid yar oo ilmaha markay ay 3 bilood yihiin iyo qaabka markaasito uu sameysmaayo iyo sidoo kale canuga caloosha markii ku jiro qaabka uu ugu jiraayo sidoo kale kaadi heestii meeshii saxaradii iyo qaabka markaasito cunuga uu caloosha ugu noolaanayay midkaan ku sharaxeena sidoo kale kan inta noo yaala isigana waxaa faa'iido weyn uu leeyahay ardada markaasito caafimaadka barato qaasatan qaybta markaasito midwife-ka ama umulisnimada si ay u ogaadaan markaas qaabka uu cunuga madaxiisa ugu soo baxayo sinaha hooyada ina sinta hooyada inay barato qofka aad muhiim u tahay inta waxaa kaloo inoo yaalo qaabkii hooyadii markaasito ee u dhali lahayd iyo cunugii markaasito qaabka uu ugu soo bixi lahaa hooyada markay dhasho kadib inoo dhasho kadib waxaa ku sameynaynaa in cunugiina markaas haddana aan saarano miisaankii oo kanna waa miisaankii markaasito oo cunugii aan saaranayn marka agabkan oo dhan wuxuu muhiim u yahay ardaygii baranaya neersanka ama ardaygii baranaya markaasito umulisnimada waxaa kaloo halkan inoo yaalo oo muhiim inoo ah asigana waa shaybaarka ardayga baranaya qaybta shaybaarkaasina wuxuu heli doonaa baraatika markaasito ku habboon oo asiga oo ku munaasab ah kan halka noo yaalo waa microscope-kii ama wixii lagu baarayay saxaradii kaadidii wixii oo dhan sidoo kale halka waxa noo yaalo waa mashiinkii markaas isagana ay baraatikada ku sameynayeen ardadii oo markaas qaadanayso qaybta shaybaarka waa maasintii marka kusoo dhawaada Maama Amina College of Health Science ugu dambeyn xafiiska maamulka Maama Amina College of Health Science macadka lagu barta caafimaadka ee Maama Amina College of Health Science ayaan usoo gudagalnay waana kelmadii ugu dambeeyay ama qaybaha ugu dambeeyay oo aan booqashada barnaamijka sahanka waxbarashada toddobaadkan aan ka sameynayno maamul ku soo dhawow barnaamijka sahanka waxbarashada ee TV-ga Shabeelle adigoo si guud kaga warbixinaya visionka iyo missionka iskuulkan aad ka leedihiin ujeedka aad u asaasteen iyo sidoo kale ardayda Soomaaliyeed qaabka aad wax u baraysaan aad kaga duwantiin iskuulada kale ama collegeska kale bismillahir rahim runtii aad u mahadsantihiin booqashada maanta aad nagu timaadeen xarunta college-ka Maama Amina General College runtii hadafka loo asaasay ama hadafka guud college-ka waxa waa inuu baahitiro dhammaan bahda jecel barashada caafimaadka in ay ka baahitiraan barashada caafimaadka sidoo kalena ay siiyaan baraatiko xoogan oo ku saabsan caafimaadka sidaan wada ognahay waddankan joogno ardayda waxay aad iyo aad ugu baahan yihiin baraatikada sidaas awgeed anaga marka hadafkeena ugu weyn waxa waaye in ardaydaasi hadduu ilaah yiraahdo aan ka baahitirno barashada caafimaadka aan siino hadduu ilaah yiraahdo baraatiko aad u dhammaystiran saad ku soo aragteenba qalabkii iyo aan diyaarin sidoo kale waxaan runtii aad u diyaarinay manhaj aad u dhammaystiran oo runtii oo new ah oo la jaan qaadaya manhajyada cusub waayo saad ogtihiin caafimaadka waa wax kaliya mar walba oo cusboonaada mar walba wax new ah ku soo darsama mar walbana loo baahan yahay marka in lala jaan qaado oo manhaj marka fiican oo cusub loo keeno sidoo kale manhajkaas marka oo newga ah oo manhajkaas oo la jaan qaadaya caalamka waxay u baahan tahay marka dhaqaatiir aad oo khibrad u leh marka waxaan u diyaarinay dhammaan dhaqaatiirta iyo macallimiinta ka howlgalaya college-ka waa dhaqaatiir iyo haysta master sharciga oo sanadkan aan ku soo darnay ka mid tahay macallin kasta oo ka baraya ama wax ka dhigaya college-ka inuu yahay macallin haysta master degree haysta taasina waan ku guuleysanay waxaas oo dhan marka waxaan u diyaarinay in aan kor u qaadno baahida jirto waddanka gudihiisa oo ah waxbarasho caafimaad oo tayo leh iyo baraatika oo tayo sidoo kale agabka kaliya maahan baraatikada aan siinayno sidoo kale isbitaalka Maama Amina General Hospitalna asiguna wuxuu u taagan yahay inuu daboolo qaybta oo baraatikadan asigana qayb weyn ayuu ku qaadanaya waayo agabka aad soo qaadateen markay baraatika ku qaataan sidoo kale waxay baraatika ku qaadanayaan isbitaalka weyn ee Maama Amina General Hospital runtii mustaqbalka waxaan aad u jecel lahay
in aan soo saarno dhaqaatiir tayo leh, dhaqaatiir oo lagu aamini karo shaqooyinka ay hadda ay qabanayaan, dhaqaatiir dhammaystiran, haysta cilmi buuxa, haysta baraatiko ku filan oo beritana waddanka wax badan ka bedeli doonto. saasaan aad u jecel lahaa hadduu ilaah yidhaahdo. idinkana booqashada maanta aad noogu timaadeen kollejka aad ugu mahadsantihiin. marka dhammaan ardaydana waan soo dhaweynaynaa. haddeertaan waxaan furnay sanad dugsiyeedkii cusubaa aan furnay. dhammaan ardayda waxaan leenahay marka soo dhowaada. idinkana aad ku mahadsantihiin maadaama aadna soo booqateen. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka sahanka waxbarashada tv-ga shabeelle ayaad ka daawataan. barnaamijka waxaa idin soo saara halkan idinkala socodsiiya alaab anigoo sabriye ibraahim sabriye, saaxiibkii abshir qaari ayaa barnaamijka dhanka kaamirada iga saaciidayay. inta barnaamijka lamid aan ku kulmi doono toddobaadka xiga, nabadgelyo. waxbartaan 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 barwaaqo gaarane waxbartaan 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 barwaaqo gaarane